500 oo bir oo lacagta dalka Ethiopia laga isticmaalo u dhiganta $3.6 ama $3.5. waxaan rabaa inaan saddexda waqti intaas isku filinsiyo anigoo ka soo bilaabaya qureec qado casho anigoo badqaba dumar baraashadii igu tahay bilowso soo subax barqa bidhan aragtiga kuma bogin lindo السلام عليكم صاحبيال subax wanaagsan barta aad nagala socotaan waa maslax vlogs waxaad nagu qarateen muuqaalo kala duwan haddaba haddaad ku cusub tahay subscribe share like saar channelkeena saaka haddaad nala sii joogtaan aad baad ugu mahadsan tahay saaka waxaan duubaynaa taytalka saad ku aragteenba 500 oo bir maxay ku goynaysaa dalka Ethiopia magaalada Addis Ababa u dhiganta $3.6 ama $3.5 waxaan rabaa inaan saddexda waqti intaas isku filinsiyo anigoo ka soo bilaabaya qureec qado casho iyo welibana waxyaalaha faakahaysiga maqaayadan iga dambaysa run ahaantii way cajabisay waxaan rabaa inaan bartan ka qureecdo canjeero freesha cunooyin badan ayay gadaa waxaana lagu magacaabaa oo filayaa magaca ku muuqda waa Hawa Restaurant I think halkaasna qaybtii dumarka ayay ku leedahay cunadeeda waa la amaanay bartan ayaan ka bilaaban doonaa muuqaalkeena haddii uu ku soo gaadho fadlan subscribe ta share ta like ta hadda waxaan rabaa inaan qureecdeeda dalbado bartan waxa weeye bartay dumarku fadhiisanayeen baan filayaa halkan dumarkaas iga cuntayn kara anigana waxaan rabaa inaan bartaa fadhiisto oo qureecdeeda dalbado waxyaalaha yaala anoo eegaya isku filaysiinaya lacagta halkan aan fadhiyo ayaan rabaa inaan anigana qureecdeedii ka dalbado wiilka ii imanaya saaxiib waxaan u baahanahay qureec maxaa yaala horta walaal waqtiga marka hore qureecyo dhamaystiran baa yaala kamida beelgeel beelaari keliyo safar fuul arako shoko fufin kiris tiandal waxaas soo waxa la helaa subax baa la xasada waa qureecyo dhamaystiran qadadiina maxaa la helaa qadada waxa la helaa beelgeel hilbaari kalaankin digaag iyo afar nooc oo laga sameeyo finger iyo hoos kale okay waxa la helaa hooska ariga kalaanka iyo digir okay qadooyinka dhamaystiran baa waa si wanaagsan muuqaalkaygan ayaan rabaa inaan xaggan ka bilowdo lacagtuna way igu yartahay waxaan haystaa 500 oo bir 500 baan rabaa inaan saddexda waqti Addis Ababa kaga cuno marka hadda waxaan rabaa inaan maadaama qureec hore ay tahay inaad ii keento saaxiib canjeero macsar lama heli karaa macsar loo helaya canjeero suuq loo helaya okay qiimeeygu teele buu noqon karaa qiimeeygu waa 120 wala canjeero macsar tale oo macalshahaygi wada ii dib saaxiib Allah waxaa la ii soo dhigay canjeero macsar leh saad wada garanaysaan waa canjeero Soomaali magaaladan dadyo waxa jira aban ogeyn in canjeerada Soomaalida laga helo oo aaminsan ba in canjeero xabashida oo la garaaco magaalada Meeye cuntooyinkii wiilkii loo tirinayo dhan baad helaysaa moogtay hadda bismillah waa nala quraacaneysaan qaybtii kaasheerkan taaganahay waxaan rabaa lacagta lagu lahaa inaan bixiyo meeqa lagu leeyahay inaad boqolaatan kaliya way jabantay lacagteed ma leeyahay horta saaxiibayal halkan ayay ka bilaabmaysaa 500 bir inaan ku isbente gareeyo ama aan mukharashaadka maanta igu baxaya saddexda waqti aan xaan ku bixiyo 120 baa la igu yiri waxaan cunaa canjeera macsar iyo weliba shaaheedi marka labada 100 baaqi baa sii leh 300 iyo waxbay soo haraya wadanka waxa lagu yaqaanaa markaad qureecato inaad koob buna ama ba koob shaaha oo cadaysa inaad ku dhufato shaah Soomaaliga marka waad nala soconaysaan runaantii aad buu jaban tahay qiimaheedu markaan 120 ku qureecdo hadda 80 bir baa la soo celiyay 80 bir wuxuu iga caawinayaa inaan kabahaygana ku casaysto waxyaalaha yar yar aan u baahanahay aan ku isticmaalo iyo welibana koobka siiniga ee bunka badankiyo qalbiga beerka kuma qureec kadib
هذا واحد رادين يا ماشان كافيه كعب لها ما دام الصبح هرط هاي dadku inta badan way hurdaan meheradaha qaar lama furin xaafadda Soomaalida waan ka soo yarbaxay in yar wali waa subax hore hadda waxa soo fadhiistay goobtii aan ka cabi lahaa bunka deetana gabadhu ayaa ii diyaarinaysa ejinsinto aan ejinsinto salaasabirno watam kenashno aad buu iskaga jaban yahay 30 bir ayaan rabaa inaan koobkaas bunka wali waa la diyaarinayaa عندي بقى يبقى بن iyo biyo ayaan cabay waxaan bixinayaa 45 bir bay ugu tiri 50 bir baan siinayaa waa koob buna iyo shaamiska 5 bir bay soo celisay waa 45 bir bay ugu baxday bun kadib hadda waxa kaliya inoo haray waxa weeye inaan kabaha casaysto hadda wiil ayaa ii casaynaya kabaha ama ii baalashaynaya saa u taqaanaan sintro abro sintro salaasa abro ay kanisa discount yelam dambanyana صدّم بر أيو يبو نظيفنا يا كباها وكبا عدانا إنه كلير جرايو كنا صدّم كيس بر إن فرت كسعره ويقولين العقوان حساب دتنا كباها هسارين بيقول هاي استجوا حولا إنه صاع كوبا شيء because الجدية هاي تديو كل الدوانو كبياشود أي نظيفة هين بجرتا استجا سدنا وقنا حولير أنا بس ما أدري بيا عشان ألوك القط دقيقة بس هنا بقول براون بيو صاحب يالو يسوي عادي تطواتن بر ستيل العقوان يسنا سو مقال كانت تقول سو قارو فضلا شير لايك and subscribe to نو سارة مركان كباه يجيب بالشيستي وضدا سهر بينا كتلاوه وحل يقولي بريج كواين أمرتها رجع هالكاش شتاجر تذكر جناحيا نك وضدا كروس قرية وحلو جناحي العق جاري سكون يشبه قلب المانتا ما دام عصوتاي برينا صدح كون عيال سوق جناحي مركب بريج كان ودحيا لبدا حافظوده Soomaalidu kala degto ayuu u dhaxeeyaa ay wiiga salay gudayn kaswa risk labada dhinac loo kala talaabay waa risk halkan hoosteedii joogan dadkii ururiye waxay rabaan inay dadka ku dhiiri galiyaan inay ka talaabaan bridge-kan ku talaabaan wadada because risk bay galayaan oo meel aad u risk ah dadku inta badan halkaas ka talaabi jireen anigoo badqaba dumar baraashadii igu tahay bilowso soo subax barqa fidan aragtiga kuma bogin lindo waa la badahay meelahan aan ka eeganaya meelan ka qadeeyo waxaan soo galay meel yar oo inta laga cuno waxaan rabaa inaan ka dalbado canjeer xabashi ama bayeened inkastoo qiimaha ay ugu tiri way aad u jaban yahay qiimahaasi qadadii waan cunay hadda waxaan rabnaa inaan lacagtii bixino lacagtii noo soo hadhay waxaan sameynaa laba boqol ku tuba dhiibina si ay 100 bir noogu soo celiso 100 biriintaas ayaa inoo hadhay oo cashada caawa marka muuqaalkan haddii uu soo gaaro fadlan meel fog hala gaarsiiyo runaantii waanan u bogay cunadeeda aad u fiican tahay anigoo badqaba dumar baraashadii muuqaalka qaybtiisii saddexaad weeyey hadda saad u jeedaan waa habeen laydhar baa iga dambeeya waxaan rabaa goobtii aan ka heli lahaa cunto dhaqameedka inaan aado kadibna halkaasi aan ka soo cunteeyo maadaama muuqaalka qaybtiisii ugu dambeysay aynu marayno inaan soo gabagabayno aan rabno lacagta noo hadhayna ay tahay wax yariisa malaha 100 something baa hadhay meesha dhaqankan tegina waan eegaynaa qiimahan weydiinayna wixii macquula ayaynu maaragtay isla eegi doonaa hadduu muuqaalkan ku soo gaaro fadlan meel fog hala gaarsiiyo mar kaste dhiirigelintiina ayaynu wax ku nahay nala socdo saak
magaaladu way shidan tahay hadda waxaynu ku sugannahay goobtaynu ka cashayn lahayn ee cunto dhaqameedka laga helo baynu galaynaa oo weydiinaynaa kama maxay garow garowa haye xagana waxaa ku jira digiri geli okay sareen xaggaasna soo meeqaad siinaysaa marka imisaad siinaysaa boqol bir haye waxaad adiga siisa salbuuko maysa waxaad siisaa salbuuko iyo faraacaad isugu kayta haye waa maasanta hadda waxaan dalbaday cashadii lacag tirada baaqiga iyo hadhanayd ayaan goobtan cunto dhaqameedka laga helo subaxiina cuntooyin kala duwan oo sida muqmada canjeerada beerka keliyaha ayaa laga helaa moogtahay marka hadda waxaan cunayaa waa salbuuko iyo faracad moogtahay kadibna macsartiina halkan ay ku taalaa macsartiina xaggan ay ku taalaa moogtahay alxamdulillah cunto dhaqameedku wuxuu baahan yahay in la calaliyo hadda waan dhamaysanay walaal waa imisa lacagta boqol bir uu jaban tahay ya maalintii maxaad ku samaysaa cuntada meesha ay hilibgel ma samaysaa may qawi 450 laakiin meelo ka qaalisan baan arkayo 800 kumbira 200 meeshan way jaban tahay okay quraacdina maxaa laga helaa okay waa cuntadii dhaqanka oo dhanba hatta duurkii soorma la helaa waa si wanaagsan saaxiib el boqolka bir baan dhiibayaa lacagtaasna waa ii soo hadhay weli meena dhammaan baan u malaynayaa jajabkan intay ku habboontaa la siinayaa moogtay marka muuqaalkeena bartan ayaynu kusoo xiraynaa fadlan sii share garee subscribe-ta yaa la iloobin si uu dad badan u gaadho noloshuna aad buu jabantaan filayaa waa maasan dhalan